dalka dadkiisa ugu farxadda badan yihiin adduunka, dalka lagu magacaabo waddanka kunka harooyinka. Finland waa mid ka mid ah waddamada ugu fog adduunka dhanka waqooyiga. Finland waa waddanka ugu kaynta badan qaaradda Yurub. Dalkan Finland kama tirsana waddamada la isku yiraahdo Scandinavian-ka, kuwaas oo kala ah Sweden, Norway iyo Denmark. Laakiin wuxuu ka mid yahay waddamada ku yaala waqooyiga Yurub. Waxa uuna xuduud dhanka dhulka ah la wadaagaa waddamada Norway, Sweden iyo Ruushka. Badda Baltiga ayaa dalkan ka xigta dhanka koonfureed iyo dhinaca koonfurta galbeed. Xeebtan ku taala qaybtan dalka ka mid ah waxay leedahay kumanaan jasiirado ah. Gobolka fog ee Finland loona yaqaano dhulka Lapland waa dhul taariikheed qadiim ah kaasoo dalkan caan ka ah. Muuqaal ahaan Finland inta badan waa dhul fidsan, inkastoo buuraha Scandinavian-ka ay ku teedsan yihiin dhanka waqooyi galbeed ee dalka. Cabir ahaan dalkan waa 338,000 oo kiiloomitir, waana dalka 66aad ee ugu dhulka weyn adduunka. sidoo kalena waa dalka 8aad ee ugu baaxadda weyn qaaradda Yurub. Finland waxay leedahay kayn aad u badan, iyadoo inta badan 70% dalka ay ku daboolan yihiin geedo waaweyn iyo dhir fara badan. sidoo kalena harooyin badan ayaa laga helaa dalkan, waxaana dalkan loo yaqaanaa dhulkii kunka harooyinka. Haddii aan fiirino dhanka dadka iyo dhaqanka, inta badan dadka ku nool Finland waxay ku dhasheen kuna koreen waddanka. Ku dhawaad 90% dadka ku nool waxay ku hadlaan luqadda Finnish-ka. sidoo kale dadka qaar ayaa ku hadla luqadda Swedish-ka. diin ahaan dadka ku nool halkan badankoodu waa Kristan. sidoo kale kumanaan muslimiin ah ayaa dalkan ku nool, kuwaas oo tirada dalkan ka noqonaya 3%. in ka badan 5 milyan oo qof ayaa ku nool dalka, badankoodna waxay ku nool yihiin qaybta koonfureed ee dalka, maadaama qaybta waqooyi ay ka mid tahay qudbiga waqooyi ee barafku fadhiyo. caasimadda dalkani waa magaalada Helsinki, taasoo ay ku nool yihiin dad ka badan 500,000 qof. Finland sidoo kale waxay hoy u tahay dadka loo yaqaano Sami oo ah dad xoolo dhaqato ah, waxayna ku nool yihiin dhulka Lapland, halkaas oo ay ku dhaqdaan xayawaanka deerada. dhaqamo badan oo Finnish ah ayaa ka turjumaya muuqaalka kayntan, halka dhaqamada kale ee Yurub ay taariikh ahaan u arki jireen kaymahan kuwa mugdi ah, kuwaasoo laga baqi jiray waayadii hore, khatarna loo arkayay. laakiin dadka Finland waxay hadda kaymahan u arkaan meel gabaad laga dhigto oo noloshooda saacidaysa. maanta dad badan oo u dhashay Finland ayaa guryo labaad ku leh kaynta si ay uga nastaan nolosha magaalada iyo buuqeeda. dalku wuxuu leeyahay dhaqamo kala duwan. waddankani wuxuu martigeliyaa tiro xaflado muusig ah sanad walba, inta badan xilliga xagaaga. dalka intiisa badani wuxuu helaa ku dhawaad 24 saac oo iftiinka qorraxda ah inta lagu jiro xagaaga, laakiin jiilaalku waa baraf. waxa uu bilaabanayaa December isagoo soconaya ilaa bisha May. xilligani jiilaalka dalku wuxuu gelayaa 24 saac habeen ah oo aan qorrax lahayn. Finland waa dal jasiirado badan ay ku yaalaan, si la mid ah waa dhul caan ku ah kayma barafleyda adduunka. dhirta ugu badan ee kaynta Finland waa geedaha loo yaqaano Scottish iyo Norway spruce iyo noocyo kale oo dhirta ka mid ah. xayawaanada ugu caansan ee laga heli karo deegaanada Finland waxaa ka mid ah yeyda, cawsha, deerada iyo nooc ka mid ah bisadaha duurjoogta ah. sidoo kale jasiiradaha xeebaha Finland waxaa laga helaa noocyo badan oo shimbiro badeed ah sida Arctic tern iyo shimbirta loo yaqaano galmeedo. Finland waa jamhuuriyad baarlamaani ah. baarlamaanku waa laanta sharci dejinta ee dowladda, waxa uuna ka kooban yahay xubnaha baarlamaanka, waxayna soo doortaan madaxweynaha dalka. madaxweynaha ayaa soo magacaabaya ra'iisul wasaare, kaasoo hogaamin doona golaha wasiirada, kuwaas oo noqonaya waaxda fulinta. ra'iisul wasaaraha ayaa ah madaxa xukuumadda, laakiin madaxweynuhu waa taliyaha ciidamada qalabka sida. sanadkii 2003 Finland waxay samaysay taariikh cusub qaaradda Yurub kadib markii madaxweynahooda iyo ra'iisul wasaarahooda labadaba ay ahaayeen haween, waana markii ugu horreysay ay ka dhacdo qaaradda Yurub. Finland waxay ka mid ahayd waddamada ugu dhaqaalaha wanaagsanaa Yurub ka hor 2009, laakiin dhowaanahan waxaa hoos u dhacay sarifka badeecadaha iyo lacagta dalka. sanadkan dhaqaale ahaan dalkani waxa uu ku jiraa kaalinta 48aad marka loo fiiriyo GDP-giisa. hadda in ka badan 75% shaqaaluhu waxay ka shaqeeyaan warshadaha adeegga sida hoteelada iyo maqaayadaha. ganacsiga ugu sarreeya ee waddanku waa wax soo saarka, gaar ahaan alwaaxda, birta iyo warshadaha elektaroonikada. dadkii ugu horreeyay ee dega Finland waxay yimaadeen qiyaastii 9,000 oo sano ka hor,
dadkii ugu horreeyeyna waxay ahaayeen xoolo dhaqatada Saami ee hadda weli baaqiga ku ah qaybo ka mid ah dalka. Labada waddan ee Ruushka iyo Sweden waxay isku dayeen inay sheegtaan lahaanshiyaha dhulka Finland. Khilaafkii u dhexeeyay Ruushka iyo Sweden waxa uu isu beddelay xifaaltan diimeed, taasoo keentay in baadari madax ka ahaa kaniisadda Kaatooliga uu Finland ku dhawaaqay inay tahay qayb ka mid ah Sweden sanadkii 1920. Finland waxay ka tirsaneyd Sweden ilaa 1809 markaasoo Ruushku ku guuleystay talada dalka in ka badan 100 sano kadib. 1917 Finland ugu dambeyntii waxay ku dhawaaqday madax bannaani inay ka qaadatay dalka Ruushka kadib kacaankii dalkaasi markii ay muwaadiniinta Ruushku ay afgambiyeen hogaamiyahoodii si ay u dhistaan dawlad la soo doortay. Finland ilaa hadda waa dal madax bannaan oo ka tirsan qaaradda Yurub.